boorame xarunta gobolkan Awdal muddooyinkii ugu dambeeyay maalinba maalinta ka dambaysa waxay ahayd magaalo kobaceeda dhanka dhaqaalaha horumarkay aad isu soo tarayay waxa magaaladan ka hirgalay wadooyin laami ah oo la jaan qaaday magaalooyinka kale ee Somaliland taasoo keentay in magaaladan ku soo bataan gaadiidka isticmaalaan dadka ku dhaqan magaaladan oo aad u soo tira badanaya muddooyinkii ugu dambeeyay dadweynaha ku dhaqan magaaladan boorame xarunta gobolkan Awdal waxay saaka intooda badan isha la raacayeen taariikhda inta la xasuusan yahay macradkii ugu horeeyay oo lagu iibin doono baabuurta oo laga furay gudaha magaaladan Boorama macradkan oo loogu magac daray Shaybe Motors waxa uu ku yaalaa bartamaha magaaladan Boorama waxaana saakay daafaha macradkaasi lagu iibiyo baabuurta ee laga furay magaaladan Boorama lagu arkay dadweyne aad u fara badan oo aad ay u farxad gelisay furidda macradkan lagu iibin doono baabuurta kuwaasoo u soo daawasho tagay baabuurta lagu iibin doono macradkani ee Shaybe Motors ee ku yaala gudaha magaaladan Boorama munaasabadii xariga loogu jaray macradkani waxa ka hadlay maamulaha macradka Shaybe Motors waxa uu ka waramay taariikhda macradkan isagoo sheegay in macradka Shaybe Motors uu xarumo ku lahaa magaalada Hargeysa xarunta Somaliland isla markaana xaruntan cusub oo maanta ka furtay magaaladan Boorama ay tahay mid la jaan qaadi doonta xaruntaasi magaalada Hargeysa ku taala maamulaha Shaybe Motors ee magaaladan Boorama mudane Xuseen Xaaji Maxamed miisaan oo isna madashan furitaanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay iibin doonaan baabuurta ugu dambaysa ee caalamkan laga isticmaalo waxaan maanta Boorama ka fureynaa macradkii ugu horeeyay ee baabuurta waxa ka hirgelinaysa shirkadda Shaybe Motors waxay branch ku leedahay Somaliland waladeedo dhan Burco Berbera Hargeysa way sii dhaftay Somaliland waxay ku leedahay branch ku leedahay Nairobi marka maanta waxaan fureynaa branchkeega Boorama salaadiin xildhibaano siyaasiyiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladan Boorama oo iyaguna goobjoog u ahaa furidda macradkan cusub ee Shaybe Motors ee lagu iibiyo baabuurta ee maanta laga furay gudaha magaaladan Boorama ayaa hadallo ay madashan ka jeediyeen waxay ku soo biyashubanayeen sida ay ugu faraxsan yihiin taariikhda macradkii ugu horeeyay ee lagu iibiyo baabuurta ee maanta laga furay gudaha magaaladan Boorama marka baabuurta bedelina waxaan la tagnaa Hargeysa midna waan geynaa midna waan ka soo kaxayna maanta waxa weeye halkan uma laga kaxayno dee la geyn kala keeni doona ama laga iibsan doona hadii la yiraahdo laga iibsan doona markii ugu horeysay ee Hargeysa ka furay meel yar baa waxa la islaa horta maxaa lagu fulayaa masha Allah waxa gobolkii wada ku faaftay kani waa wax loo baahnaa ومالين مولدي الله بركيه مالين موسى مصف يعني ومال مولدك مولد النبي بان جونا بجاج بالك واربعه يا كركور العقاق وسعطاوان افر بقول با جوجته ما انت waa loo baahnaa basaskii baa ibida kana waxa weeyaan kii saddexaad oo waa loo baahnaa